waana qayb saddexaad oo ku saabsan murtida iyo mahmaaha ay Soomaalidu dhurwaaga u saariso. dhegaystayaal, sheekooyinka faraha badan ee maskaxda Soomaalidii hore ay mareegtay kuna saabsan dhurwaaga iyo dabeecadihiisa waxaa ka mid ah kuwa aan maanta idinku jalbeebin doono. waxaa la yidhi dhurwaa aad u gaajaysan baa wuxuu soo galay toon uu markaa ka hor dhowr jeer ka loogsaday. waxay ahayd toon uu dayrtii hore ka liibaanay oo xoolo la baylihiyey uu marba neef kala tegey. maantase meel loola guurayba ari iyo lo' toona midkoodna laguma oga, inkastoo qashku isqabsaday oo geed hoose iyo geed saraba ay dhirtu hamashowday. meelihii uu ceesaamaha iyo sabeenaha ku layn jiray isaga oo tuuxaynaya ayaa geeda dheerdheer oo hortiisa sariiran sharqani uga baxday. mar qura ayay hilidiiro cusubi ku soo korodhay. indhaha ayuu galkii ka soo bixiyey oo miciyihii isku lisay. wuxuu isu qaabiyey waxa sharqama inuu haabto soona qabsado, isaga oo aan hurdin buu riyoonayaa. sharqantii iyo shababaxdii u baxday buu u dhaga taagayaa. afarta jaho ayuu midba mar indhaha ku fiiqayaa bal inay bidhaan dagani u muuqato. hase ahaatee wax yar kadib bay hawadiisii hoos u soo dhacday. hankiisii baa dabaysha raacay. show sharqantii u baxday waxay ahayd uun raxan daayeera ah oo geedaha hareeriga ah midba mid uga boodaysa. kamase dayriyeene ma wuu gaari karaa? ma wuu inta duuro dhirta dusheeda ugu tegi karaa? waa maya jawaabtu. dhurwaagii wuu murugooday. markaas buu ku hamiyey, allow aad ibaratide yaa daayeerow dhulka kaa hela. isaga oo sidaas isaga murugoonaya ayuu ku hambabaray laba daayeeroo ay laacdan uga caddahay. iyaga oo iscaylsanayana geedkii uu hoostiisa taagnaa dusha uga baxay. isaga oo cadyada qubaaya ayuu kor u dhowray. wuxuu indhaha ku joojiyey dibka guduudan ee daayeerka lagu yaqaan, duurjoogta kalena uu kaga duwan yahay. saa waxa alla uga dhigay hilbe ay sitaanoo ay kol dhow cuni doonaan, isaguse uu ka qadi doono. kolkaas buu inta madaxa hoos u rogtay wuxuu ku cataabay hilbawaanin waaye iyo nin dabada ku warwartay. taas oo noqotay hawraar uu ku mahmaahi karo wax uu aad ugu baahi qabo, qof si walba ku raadiyey kuse heli waayey, isla markaasna arkaaya ruux kale oo isla waxaas si xad dhaafa inta u haysta aanay wax weynba la ahayn. sidaan ku soo xusay barnaamijyadii kan ka horreeyey, dhurwaagu waa hilib ku nool. waxaan isaga ahaynna wax kuma falo. xoolaha la dhaqdo cadka iyo caanaha dartood haddii ay dadku u dhaqaalaystaan, dhurwaagu cadka oo keliya ayuu daneeyaa. cadkooda ayuunbuu u hamuuman yahay. caana inay leeyihiin iyo in kalena war iyo wacaalba uma uu hayo. xeryaha xoolaha lagu xeraysto ayuu habeenkii u soo gabadaa si uu inta ugu dhaco uu neef ugala tago. inta uu ilbaasiga ku jira wuxuu arkaa dumar aryaha lisaaya oo kolba haruub caana ka buuxaan qof kale oo dibadda taagan u dhiibaya, si ama carruurta loo siiyo ama weel kale oo weyn loogu biiriyo. dhaqdhaqaaqaasi dhurwaaga waa u muuqdaa, danse kama laha. wuxuunbuu sugayaa inta ay dumarradu xeryaha ka baxayaan oo inta sharqantu yaraato dhinaca dhulka la dhigo. si ay haddaba u tusaaleeyaan dhurwaa iyo caano siday u kala fog yihiin, ayay Soomaalidii hore waxay ku sheekaysay in maalin maalmaha ka mid ah la waraystay oo lagu yidhi, horta dhurwaayow caana ma taqaan? markaasba sidii wax kale looga sugaayay wuxuu ku jawaabay, ma waxa madow oo muska la isaga dhiibaa? taasoo noqotay hawraar loogu mahamaaho wax uusan aqoon u lahayn ama uusan weligii arag, qof inta wax laga weydiiyey kaga jawaabay jawaab aan loo joogin, aqoon darradiisana muujinaysa.